habeen wanaagsan waa kuway saddexda dowladood ee diidan qorshaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay maamul cusub ugu dhisayso Jubbaland kana madax banaan maamulka imikan uu hogaaminayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe yuu yahay sarkaalka sare ee ka tirsan dowladda Kenya ee shalay gaaray magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland xogo iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan abaabul xooggan oo ka soconayo guud ahaan gobolka Gado iyo dagaalka dhan Axmed Madoobe oo looga dhawaaqay mid ka mid ah degmooyinka gobolka Gado xogahaas ayaan doonaynaa muuqaalkan idin kula wadaago soo dhawaada haddii aad nagu cusubteena nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada nagu xiran aragtidaadana qaybta faallada ama comment kaga soo dhiibo hagaagkan ku bilaabo iyadoo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay si toos ah imikan ay ugu dhaqaaqday dhismaha maamul cusub oo ka madax banaan Jubbaland uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isla markaana ay dowladdu way aqoonsan tahay maamulka lagu dhisayo degmada Garbaharey oo xarun ku meel gaar ah u noqon doonto maamulkaasi waxa durba soo ifbaxaya dowlado si weyn u diidsan qorshaha dowladda ee dhismaha maamulkaasi saddex dowladood ayaa xuquuq ay tilmaamayaan inay iska kaashanayaan sidii loogu hortagi lahaa qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya waa dowladda isu tagay Imaaraadka Carabta Kenya iyo Ethiopia oo dhammaan iskaashiyo dhow oo la xiriira sidii qorshahan loo burburin lahaa isla markaana cadaadis loogu saari lahaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sameynaya isla markaana xiriir dhow la leh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe taliyaha hay'adda nabad sugidda ee dalka Kenya Nuruddin waxa uu shalay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland uu ku tagay socdaal qarsoodi ah oo warbaahinta laga qari wuxuuna gudaha airportka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee Kismaayo kula shiray Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana diiradda lagu saaray kulankan sidii ay Kenya doorkeeda uga qaadan lahayd hortaga qorshaha dhismaha maamulka cusub ee Jubbaland ee dowladda federaalka dusha ay ka riixayso wuxuu sheegay Nuruddin in dowladaha Kenya Ethiopia iyo Imaaraadka Carabta ay iska kaashanayaan sidii qorshahan loogu hortagi lahaa wuxuuna ugu laabqaboojiyay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dadaalada ay ku garab taagan yihiin ma jirto war rasmi ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ka soo baxay oo ay uga hadlayso socdaalka Nuruddin ee lidiga ku ahaa hanaanka ay dowladda federaalka Soomaaliya ku wajahayso khilaafka kala dhaxeeya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hase ahaatee warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay si dhow la socoto dhaqdhaqaaqyada lidiga ku ah ama ka soo horjeeda dhismaha maamulka Jubbaland cusub ee ku meel gaarka ah Imaaraadka Carabta kol hore waa uu muujiyay dadaalkiisa la xiriira garab istaaga Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dhawaanse waxa dekada Kismaayo ku xirtay markab siday hub iyo gaadiid dagaal oo loogu talagalay in looga hortago dhismaha maamulka Jubbaland cusub ee gobolka Gado si la mid ah Ethiopia ciidamo badan ay dhinaca xadbeenaadka ka soo talaabisay waxay doonaysaa in degmada Garbaharey iyo deegaanada kale ee ku teedsan ay ciidamadan dhawaan gaaraan si looga hortago qorshahan waa iskaashi dhow oo ay sameynayaan oo ay ku garab istaagayaan Axmed Madoobe dhinaca kale dagaalka dhan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta looga dhawaaqay degmada Buurdhuubo oo ka tirsan gobolka Gado gudoomiyaha degmadaasi ayaana shaaca ka qaaday in wax la yiraahdo Jubbaland aysan jirin diyaarna ay u yihiin in ay gacanta ku soo dhigaan Axmed Madoobe Kismaayana ay qabsadaan wuxuuna sheegay in ay daneynayaan in ciidamada ka amar qaata Axmed Madoobe ay qaataan baaqi shalay ka soo baxay xildhibaan Xasan Firimbi oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ee ahaa in la fasaxo ciidamada si ay u soo afjaraan ciidanka dowladda federaalka ee gobolka Gado sidii kol hore dhacday oo isagoo tusaale ahaan soo qaatay wixii ka dhacay Raas Kambooni wuxuu sheegay in hadalkaas uu yahay mid mara awaal ah ayna doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan Maxamuud Sayid Aadan iyo dhuumaal oo ah wasiirka amniga ee Axmed Madoobe ugu magacaaban maamulka Jubbaland wixii warar iyo macluumaad ah ay ku soo kordha wararkeeni warbixinadeena kuwan xiga ayaa ku daawan doontaan ala sii jooga saaxiibayaal nabadgelyo nin qorin magaalada Muqdisho dhexdeeda ku qaadan kara ma jiro yuhuud ma taha dhacays hadalka wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu abuurayaa abaabul ciidan oo ay sameeyaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo kolkan u muuqata in dowladda Soomaaliya ay doonayso in awood military ay ku muquuniso
maxaa ka dhalan kara oo saameyn ah yaysa tahay cidda mas'uuliyadda waxa ka dhasha dhibaatadan qaadi doonta xogo iyo macluumaad la xiriira ayaan doonayaa inaan muuqaalkan idinkula wadaago soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad nagu cusubtiina nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada inagu xiran aragtidaadana qaybta faallada ama commentiga kaga soo dhiibo hagaag aan ku bilaabo muuqaalkan halkan idinkaga baahinayno waxa uu saacadihii ugu dambeysay uu si weyn u qabsaday baraha bulshada waana wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ku hanjabay in caasimadda Muqdisho aysan qori ku dhex qaadan karin xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo walaac xooggan ka qaba hanaanka ay villa Soomaaliya u wajahayso xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tan doorashada oo ay u arkaan in villa Soomaaliya ay doonayso in awood ay ku muquunayso shacabka isla markaana doorasho aan heshiis lagu ahayn ay dalka ka hirgeliso waxaase jirtay dhawaanahanba in ay soo baxayeen warar sheegaya in xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood ay abaabul ciidan caasimadda Muqdisho ka sameynayaan sida dhacday teeramkii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo oo caasimadda Muqdisho la ogsoon yahay in qaybo badan oo caasimadda ka mid ah ay gudaha u soo galeen ciidamo taabacsanaa xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo uu xilligaas horbood u ahaa madaxweynaha iminkan Xasan Sheekh Maxamuud hadalhaynta la xiriirta in ciidanka caasimadda ee taabacsan mucaaradka ay soo galayaan waxa ka jawaab celiyay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi waxa uu si cad ah u sheegayaa in xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka caasimadda Muqdisho aysan qori ku dhex qaadan karin haddii ay qaataanna la diiwaangelin doono taariikh kol hore loo diiwaangeliyay oo ahayd in caasimadda Muqdisho uu iska horimaad ku dhex maray ciidamo taabacsanaa mucaaradka iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka amar qaadanaya madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo iyadoo oo xubno ka tirsan mucaaradka qaarkood markii rasaas la hubiyay ay ku qeyla dhaamiyeen yuhuud ma tihiin sidii si la mid ah ayuu ballan qaaday inay dhici doonto nin qori qaadan karaan ma jiro caaway anoo wasiirka gaashaandhigga dhahay nin qori magaalada Muqdisho dhexdeeda ku qaadan kara ma jiro yuhuud ma taha dhacays bootadaas waa dhamaatay aad iyo aad baa mahadsantiin hadalka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya falanqayaasha dhinaca amniga iyo siyaasadda waxa ay qabaan inuu abuuri karo xasarad siyaasadeed iyo iska horimaad ciidan oo caasimadda Muqdisho ka dhaca isla markaana uu la mid yahay hadalka Fiqi imikan uu ka dhawaajinayo hadal kol hore warbaahinta oo uu mariyay Cali Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir xilli uu ka hadlayay abaabulka xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee ciidan isaga oo tusaale u soo qaatay ereya ay ka mid ahaayeen hebel ma tiid waxay sadashay iska horimaad caasimadda Muqdisho ka dhacay waxay qabaan falanqayaasha amniga iyo siyaasadda intani ay horseedi karto in xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ay isuubeeyaan caasimadda Muqdishona ay martigeliso iska horimaad isla markaana ka dhalan karta qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac mas'uuliyadda waxa loo saarinayaa shakhsiga iclaamiye oo ah wasiir Fiqi xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka weli ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay tallaabada Fiqi xogo iyo macluumaadka dheeraadka ah ku soo kordha waxaan idin kula wadaagi doonaa muuqaaladina kuwan xiga nabadgelyo